السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتين تاغيراش هريق بصور اي امد صوماليات وامركي ugu horeysay ee aan kasoo noqdo live bartaan kabsoor soo dhawaada. waxaan rajeynayaa inaan khayr iyo wanaag aan kala qaado doono kala faa'iido doono. soo dhawaada dhammaantiin maadaama aan isku cusubnahay oo aanan weli bartaan hore live uga soo noqon. magacaygu waa Cabdalla Salaad ina shabeel dhaansade ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya kana mid ah maamulka beejkan Garsoor. laakiin waa markii ugu horeysay in halkan live ka soo noqdo. insha Allah taala waxaan rajeynayaa caaw inaan falanqeeyo shirka Kismaayo on sidaad aragtaan cawaan aan siiyey. soo dhawaada marka intii aragtideeda ah oon xodogaalka ahay ayaan isku dayi doonaa insha Allah taala in la wadaago. marka waan silkiin sugayaa wax yar oo ilaa iyo 1 daqiiqo 2 daqiiqo maadaama isku cusubnaa. soo dhawaada. waska si bilaabanayna maadaama dad 100 ku dhaweey ay ku jiraan. kulliba gadaal baa laga daawo doonaa muuqaalka. muhiim ah in hal mar la wada yimaado. sidaan la socono Kismaayo waxa ku shareeyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee federaalka hoostago. magacyadooda iyo maamulada ay hogaamiyaan inta baa la socotaan ku dheeraamayo. laakiin rag isku ujeeda ah haddana kala ujeeda ah weeyaan. sidoo kale rag dantood moogayaal ah haddana dan Soomaaliyeed inay ka shaqeynayaan ku gambanaya weeyaan. sidaas darteed waxaan rabaa inaan waqti badan inaan geliyo ma doonayo inaan falanqeeyaan doonayo intaas. dhibaatadu waxay ka bilaabatay xiriirkii loo jaray Qatar iyo la safashadii Sacuudiga iyo Imaaraadka. markaas balaayo kama horeyn intii ka horeysa maamulada iyo dawladda waxa isku fiicnaayeen. sidaas daraadeed xiriirka maamulada way wada jireen marka laga reebo Jubbaland. sidoo kale madaxweyne Gaas dawladdu xiriirkii uu jaray wax faragelin kuma sameyn. sababtoo ah laba arrimood dawladdu faragelin kuma sameyn Puntland. qodobka koowaad maamul dhisan oo habaysan oo system dawladeed leh oo deegaanka uu ka taliyo ku magacaabay gacanta ku hayo. hadday noqoto nabadgelyo hadday noqoto dastuuri hadday noqoto dhinac kastaba maamul habaysan inuu yahay laguma faragelin. qodobka labaad inuu wax ku bedeshay xiriirka uu jaray laguma faragelin oo dekada la dhisayaa garoon baa la dhisayaa wadooyin la dhisayaa taana laguma faragelin. madaxweynaha Cabduli Cali Maxamed Gaas xiriirka uu jaray dawladdu bataatama kamaysan hadal. sidoo kale Axmed Madoobe khayri qasaar wuxuu kor u kulmi lahayba ma uu soo qaadin arinta Imaaraadka iyo Carabta ishaashta bataata ma soo ma qaadin. marka waxa is weydiinta mudan Shariif Xasan iyo Xaaf waa la gartay oo waxa weeyaan xiriirkay jareen baa laga raacay. laakiin waare oo cusub oo wali aan la caleema saarin Cabduuli oo dawladdu aysan xiriirkiisii waxba dhibaatada u arag maadaama waxyaalo horumar uu keenay iyo ilaahay uu ku roon yahay. Axmed Madoobe oo bataata ma ka maxaa waalay nimankaas saddexaas nin maxaa waalay labada nin oo kale haba isdifaacan hay yiraahdeen dawladda fargelin ugu hayso ayagoon waxba ku bedelan xiriirkii ay u jireen Qatar ee dawladda Soomaaliyeed ku garab mareen ayaga oonan waxba ku bedelan. haddana
dowladdu way faragelisay siyaasad ahaan sida ay ugu sheegeen anigu ma hubno sida ay ugu sheegeen aan ka hadlaynaa sidaas darteed maxaa waale labadan saddexdan nin oo kale maxaa waale axmedow nin odaya Soomaaliyeed nabadoona ayuu ahay maanta inuu Kismaayo isku geeyo niman kala ujeeda haddana isku ujeeda oo kaliya isku ujeedo inay qaranka Soomaaliyeed lu gooyaan taas oo isku ujeeda ka yihiin inuu maanta Kismaayo isku geeyo asoo ku xarnay oday Soomaaliyeed horta aad baan ugu xunahay waxaan filayaa intaas ayaan ma taqaanahay horta ugu xunahay waana rajaynaynaa inuu intaas garwaaqsado kow dastuur haddii la isku haysto oo qodobada la isku haysto dastuur yihiin dastuurka Soomaaliya waa qoran yahay awoodda maamulada goboladu way qoran yihiin awoodda dowladda federaalku way qoran tahay wax hadeer Kismaayo inta lagu sameeyo hadeer kadib la isku raacaya maaha laakiin waxa la yiri hal candha qabtahay geeda ku xoqato ma wayso hal candha qabto geeda ku xoqato ma wayso nimanka odayaasha qalaadkii sameeyeen qalaad kale ayay ku sii darayaan maadaama dastuur qoran yahay nin walba shaqadiisa waa yaqaan sababtoo Cabdiweligaas oo yaqaan shaqadiisa asiga sharciga maamul goboleedka Puntland oo siinay uu garanaya sidoo kale wuxuu garanayaa shaqada gudoomiyaha gobolka Bari ama gudoomiyaha gobolka Nugaal oo siinaya dastuurka Puntland oo garanaya halkaas markay taagan tahay markii dowladda dhexe iyo federaalka iyo maamul goboleedka ay timaadano sidaas bay la mid noqonayaan sida xaqiiqda asaas weeyaan sida xaqiiqda sida weeyaan sidaas darteed Cabdiweli iyo Xaaf iyo Axmed Madoobe ma doonayaan in gudoomiyaasha goboladu awoodooda faraha la galaan kana yeeli mahayaan sidee ugu dhiirideen inay faraha la galaan waxa dowladda Soomaaliya leedahay oo dastuurka ku cad oo si cad oo dastuurku bayaaminayo qodobkiisa 53 oo si cad u bayaaminayo maxaa kooskarey waa fidno iyo hunguri ila du kuraa dalka Soomaaliya lagu dhigo in ummadda Soomaaliya hor u socon haddii aan kala qaado madaxweynayaasha Cabdiweli waxaan loo fargelin horaan u sheegay waa nin mudan Xaaf daan ka soo bilaabo Xaaf caaw ma haysi baarlamaan oo ma haysi maxkamad oo ma haysi caasimad oo ma haysi ila du kuraa madaxtooyo sidoo kale waare inta kale ma haysiyo xaatima bal caleema saarinba Shariif Xasan sidoo kale tuulo u gudbi karta male magaalo u gudbi karta male baaba iyo baahida iyo colaada ka jira deegaanadaas waa loo yahay sidaas daraadeed ninka awoodi waayo inuu isku gudbisiyo Jowhar iyo Buuloburti ninka isku gudbisiyo waayo oo dadku ku go'doonsan yihiin kan isku gudbisiyo waayo Baydhabo iyo Xudur kan isku gudbisiyo waayo Kismaayo Bu'aale kan isku gudbisiyo waayo Cadaadi Dhuusamareeb nimankaas oo dantii loo doortay oo hogaanka loogu dhiibay oo ummadii loo xil saaray inta maray ku guul dareysteen dan Soomaaliyeed ma soo wadaan dan Soomaaliyeed nimankaas ma wadaan ma ka hadli karaan horta Axmed Madoobe caasimadii maamul goboleedka Bu'aale ma tegi kariyo Shariif Xasan caasimadii maamul goboleedka Baraaw ma tegi kariyo Xaaf caasimadii maamul goboleedka Dhuusamareeb ma tegi kariyo niman sidaas oo wixii ayaga loo xil saaray oo ay ku magacaabnaayeen ku guul dareystay oo nilaadu ku roon yahay wax qabad kale iska daay xataa caasimadu tegi karin tan Soomaaliyeed maxay u sheegi karaan hadday noqoto mid arrimo dibadeed iyo hadday noqoto mid arrimo gudo maxay nimankaas horta soo kordhin karaan waxa loo baahan yahay ninku markuu tiisa ka soo baxo ayuu tu kale oo isku dhiriri karaa tusaale madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii dalka madaxdii dalka ugu sareysan waaye okay ayagoo sidaas magaalada Muqdisho ay degan yihiin dawladii degan tahay magaalada Muqdisho systemka ka jiro nabadda ka jirto horumarkii socoto dhammaantiin marqaatiya ka tihiin afgooy u muuqato dastuurka lula soo ordaha la leeyahay dastuurka federaalka noo ongol
dastuurka federaalka wuxuu ogol yahay shariif xasanow inaad nabadgelyada magaalada afgooy aad sugtid oona dowladda dhibaato ugu imaano dastuurka ku ogol yahay cusub waxa loo ogol yahay ninka la yiraahdo waare waxa loo ogol yahay inuu magaalada balcad ammaankeeda sugo dowladda dhibaato ugu imaan sidoo kale xaaf waxa loo ogol yahay in magaalooyinkiisa uu maamulo warwaayahay dastuurka federaalka ah adigu waxyaabaha qaranka Soomaaliya duminaa kaliya ka raacinahe maxaad ka qabateen waxyaabaha leedii dhiibay ya maxaad ka qabateen waxyaabaha leedii dhiibay maxaad ka qabateen dastuurka haddii hal dhinac laga eego waxa macnaha ma soo korinayo aan dastuurka aan ku dhaqano oo aan isku noqono laakiin war midkii hooso adiga lagu dhiibo xilka aad ku qabto madaxweynaha aad ku eed horta maxaad ka soo qabatay waxban sidaas darteed nimankaan odayaasha ah oo dalkan hogaami kooxadee camal u dhaqayo dadkan Soomaaliyeed maxaa kala gudboon dadkan nimankaan hogaami kooxadee kala u dhaqmayo oo qaatay shaararka oo dowladeed qaatay oo madaxdii qaranka isku dhirinayo dadkan Soomaaliyeed maxaa kala gudboon dadkan Soomaaliyeed waxa la gudboon qofka maanta caabud waa ku godoonsan ee kan maanta garbaare ku godoonsan ee kan buulaburtu ku godoonsan ee kan dhuusa mareeb ama gurceel ku godoonsan waxa la gudboon dadkan hogaami kooxeeda danteedu ma yar dan kale aan shuqul ku lahayn inay iska hor wareejiyaan federaalka macnihiisu ma ahan in la tartamo ma ahan in gudoomiye gobol oo isku dhiriri madaxweynaha isku dhiririyo ma aha federaalka qalad baa laga fahansan yahay federaalku waxa waa kala hadeeyay xaq buu ku siiyay sharci buu ku siiyay maamul baa lagu siiyay laakiin macnaheedu ma ahan inaad madaxdoon isku dhiriso shaqo kale aanaba qabanba shaqo kale aan qaban macnaheedu ma sidaas darteed dadka Soomaaliyeed federaalka markii hore waa lagu qasbay ayagu ma dooran loo macodeen dad Soomaali laga tala gelin dad Soomaali loo soo bandhigin ajnabi baa soo xariiqay nimankaas tuugada ah oo siyaasiyiinta loo keenay ayagu baa yiri waan qaadan dadka Soomaali waa inuu ku fikiraan federaalka kaliya hal meel kaliya ka fiiriyaan anigu balweynan ku dhashay balweynan ka imiday federaalku maanta ima ongola inaan magaalo ay xigto oo la yiraahdo gurceel inaan gudoomiye ka noqdo federaalku ima ongola wiilka gurceel ku dhashayno federaalku uma ongola intuu yimaado oo balweynan gudoomiye ka noqdo halkaas ka qoys qaado federaalka lagu sheegahay waa nuuca dan Soomaaliyeedna kuma jirto ayagoo sidaas ahayd oo la isaga dul qaadanayay hadda waxa timiday in bal loo tartamo sidii nin madaxweyne ah bal xiriirka hadda qadar loo jaray oo maamul goboleed jiray muxuu soo kordhiyay siyaasad ahaan waxa dheefaan muxuu waxba soo ma kordhin laakiin dadka Soomaaliyeed buu isnacsiiyay dowladda Soomaaliyeed buu sharafta ka qaaday wixii farmaajo iyo qayre iyo wasaaradda arrimaha dibadda ka halaabano waxaad ogaataa inaysan kaligood ka halaabayn oo ay dhammaantood dadka Soomaaliyeed ka halaabayaan ama Puntland ha joogo ama Koonfur Galbeed ha joogo ama ilaa dukuura meesha joogo ha joogo inay ka wada halaabayaan marqaati ah oo maanta waxa loo shirinayo Kismaayo oo lacagta loogu bixinayo oo dowladda Soomaaliya loo horkeenayahay inaysan ahayn dan dadka Soomaaliyeed taageero dadka Soomaaliyeed laakiin ay tahay lugooyo iyo dib u dhac iyo ilaa bahdilaad shacabkan Soomaaliyeed dalkan soo kabanay la doonayo laakiin intaas markii la fahmo dadka Soomaaliyeed fahmaan ayaa wax la qaban karaa imaaraad dad yar oo dadka magaalada afgooye iyo xamar ku dhaqana ka badan gibigiisino waxa ka weyn gobol dalka Soomaaliya kamid ah dal Soomaaliyeed oo qadiima oo intaas leeg oo dadku silbax yahay maanta inay ku ciyaaraan waxa keen dadka Soomaaliyeed ee nimankaas la adeegsanayo la socday la safan baa keenay waana ka xumahay nabad kasta haasatid iyo colaad kasta ku jogan tahay dalka Soomaaliya gudihiisa ku jirtid ogow wanaagii Soomaaliya gaartana waxbaad ku leedahay xumaantii Soomaaliya gaartana waxbaad ku leedahay intaas qofka Soomaaliya uu fahmaa loo baahan yahay soo qabiil waxba aan fiirin xumaantii qaranka Soomaaliya soo gaartay inay wax aad ku leedahay oo ay cambaar kugu taalan tahay wanaagii dalka ku talaabsadano aad wax ku leedahay
maxaa laga fira kalaa shirka inay ka soo baxaan shirkan maxaa laga filaya inay ka soo baxaan sida aniga aragtidayda waxaa ka soo bixi doono waxa uu liddi ku ah qarnimada Soomaaliyeed waxa liddi ku ah isku duubnida ummadda Soomaaliyeed waxa liddi ku ah dowladnimada Soomaaliyeed waxa liddi ku ah sharaftii karaamada ummadda Soomaaliyeed intaas ka soo bixi doonto intaas ayaa ka soo bixi doonto xamar dowladda Soomaaliyeed degan sida darad aragteen maamulada bishii waxa la sii jiray $150,000 maamulka la sii jiray bishii nasiib daro dowladda siinaysa lacagta siinaysa ee dhaqaalinaysa iyadoo iska tabar xun oo ilaa duu ku roon yahay awoodooda dhaqaalaysan dhameyn inta sameeynaysa ayaa lagu dhigay aan wax isweydiiyay nimankan maamul goboleedyada ma nabadda Muqdisho iyo iftiinka Muqdisho ka soo baxa dhibay dhinac markaad u fiirsahaa waxaad ogaataa dadka Soomaaliyeed way qaxeen laakiin magaalada Hargeysa iyo Boorama iyo Burco iyo Laascaanood iyo Garowe iyo Qardho iyo Boosaaso nabadgelyo ahayn umaysan qaxin waxay u qaxeen wadamo shisheeye hadday xamar ka qaxaan hadday Kismaayo ka qaxaan hadday Balweyne ka qaxaan hadday Jowhar ka qaxaan hadday Bu'aal ka qaxaanba dalka shisheeye u qaxeen laakiin waxaa marag ma doontaa haddii magaalada Muqdisho nabadgelyo ahaa laheeday oo sistemka dowladeed oo magaalada Muqdisho sidoo hadda yahay iyo ama si ka fiican yahay in dadka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho u qaxeelayaan buruntiya oo marqaati ma doonta ah sidaas daraadeed ninka magaalada Muqdisho nabadeed dhibaysaa waa nin Soomaalinimadu dhibayso waa nin magaca Soomaali dhibayo sababtoo ah reerka hadii hooyadu ka baabado ama hooyadu ka dhimato reerkaas waa baabay xamarno hooyadii Soomaaliya waay hooyada meesha day ka maqan tahay wax hagaagayo wanaago iimaanaya ma jiraan wax wanaago iimaanaya ma jiraan Umar Abdirashiid oo ah dalaalka Imaaraadka Carabta u adeegsanay Soomaaliya maxay loo kaay dalka Soomaaliya maxay loo kaaya waa maya kuma ogaano wax ra'iisul wasaare Soomaaliya dhowr mar soo noqday nin wadani yahay oo dalka Soomaaliya taariikh fiican ku laha dhalay laakiin adduunyada wax la yiri waa ku dhalay israac ma jirto Umar Abdirashiid dalka Imaaraadka Carabta miyuu dalkiisa Soomaaliya u lagu qabanaya hadduu sharaf rabo oo sharaf iyo karaamo rabo ra'iisul wasaare Soomaaliyeed uu noqday ayuu noqday hantino maantay umaleeymaa inuu shilmaan yar oo carabtu ka qaato oo Soomaaliya ku iibiyo inuu meel u seexanayo umaleeymaa sidaas darteed Abdirashiid ninka la yiraahdo Umar Abdirashiid maxaa waalayo ujeedkiisuna muxuu yahay laba yaqaan waa baaba on kamida kuwaas maamul goboleedu wadaan mid kamida weeyaan dalal nimankii ajnabiga ahay oo dalka Soomaaliya ku takrifalay jiray oo madaxda Soomaaliya bahdili jiray oo ilaa duu ku roon yahay sida xun loo dhaqmi jiray ma aragteen bariyahan yaa arkay anuu ma arkay waxyaabaha la diiday wax kamid ah waxyaabahaas kamid ah meeshan rag 26 sano u xirneed rag ilaa duu ku roon yahay shaqo tagay oo ama dalalkooda criminalka ah ama dalalkooda sirdoon ah ayaa Soomaaliya degay waxay gacanta ku dhigeen siyaasadda dalka waxay gacanta ku dhigeen international dollarki Soomaaliya waxay loo soo marinayay ama deeqii caalamiga Soomaaliya loogu deeqay ayay gacanta ku dhigeen way adag tahay marka in laga guuleysto nimankii sidaas ahay nimankan yimid ee dawladda cusub ee timid ee Febraayo dhalatay dagaal cusub ay la gashay oo cad oo muuqdo ay la gashay waana ogtiina ra'iisul wasaare Farmaajo wuxuu xilka hore ku waayay waxay dagaal la galay ajnabta waxaan ognahay shir kasta Soomaaliya ka soo dhex muuqan jireen laakiin nimankii international community-ga ay xamar joogay ee siyaasadda Soomaaliya saas u walaaqi jiray ee dadka salduul iska yeeri jiray xalane aawen lama hayo nimankaas ee Imaaraad Carab
iyo wadamada deriska iyo niman kale dad kale oo aqoon qarsan intuba waxay isticmaalayaan Soomaali ayaa la isticmaalayaa waxa loo isticmaalayaa dalkaada burburi dawladnimada sharafta ka qaad dalkaada iibi dadkaada nabad ha siinin ummadaada waxbarasho iyo nabad iyo biyo iyo nolol helin intaas ayaa nimanka Soomaalida loo adeegsanayaa ana ka xunahay dadkii Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaalida inay sida u dhaqmaan ayaan ka xunahay waxaan ka xumahay geel aan leedahay oo ku dhalay oo barwaaqo joogo inaad marti ka noqoto tiraanin kale islaameed aan iglis inay tiraadid ayaa nasiib daro horta aad oo weyn taasna nasiib daro ah xoolo adiga leedahay oo ku dhalay oo darar ku joogo inaad islaameed marti taadu noqoto tira war xoolahan ilis adigoon cuuriyaan ahayn nasiib daro ka weyn ma jirto nasiib daro ka weyn ma jirto sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed hadday sharaf rabaan ay karaamo rabaan dawladooda ha ka dambeeyaan waxna wax banaanka ah oo Soomaaliya dibadda ka ah oo wixii ay xumaanay wanaag keenaan Soomaaliya wada saameynayso waxna waxa weyn wax loo kala oo dalka gudihiisa ka jiro oo xifaaltan ama qabiilka ku saleysnaato ama dhaqaalaha ku saleysnaato ama siyaasadka ku saleysnaato waxyaabo loo kala oo anaga naga dhaxeeyo Soomaalideena naga dhaxeeyo oo loo kala way jiraan Soomaalidu taasoo kale waxay ka tiri gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa waxna wixii dibadda ka imaanayo anaga naga wada halaabayo ama noo wada samaanayo weeyaan dadka Soomaaliyeed maamul kasto shacabkiisa waa wax meeshan joogahay oo nin walba isku haleynayo hal tuso dadka Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed jecel yihiin marna way israa'iil ka hayn in dawladnimada laga dumiyo dadka Puntland degan maantii waxu dana oo deegaankaas Puntland kaliya ku saabsan intaas kaliya u dana waxa la doonayaa shacabka Puntland inay ku qalqaaliyaan maamulka Puntland oo kale inay ku qalqaaliyaan war waxaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay dhibaato ka soo gaaraysaa annaga waa noo dan oo waa noo wanaag laakiin dadka Soomaaliyeed oo kale oo dhan ayay dhibaato ka soo gaaraysaa intaas dadka inay fahmaan la rabaa intaas dadku inay fahmaan waxa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u dana oo maamulada kamida ku dhib ah ha noqoto Galmudug ama ha noqoto Hirshabelle ama ha noqoto Jubbaland oo maamulkaas ku dhib ah laakiin dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wanaag u horseedayo wanaag u ah haday jirto waxa la doonayaa inay waxaas la laqo oo leeyahay war waxaan anaga waa noo daran yihiin waa u jeednaa laakiin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed wanaag u tahay ee aan laqno in la yiraahdo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiga Soomaalidu in intaas kartaan aad muhiim ah waxa adiga maanta ku dana oo adiga iyo qoyskaaga ku dana maanta laakiin dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo karaamada Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed dhulka la jaraha jiro waana waxa Cabdininka la yiraahdo oo in Cabdirashid oo wado kale haloo baahan arrimahaas oo kale dadka Soomaaliyeed inay ka fool jignaadaan siyaasiyiintan ay ku diidanayeen war waxaan anaga waa noo dan laakiin dadkii Soomaaliyeed iyo sharafta Soomaaliyeed ayay dhulka la galayaan mana doonin inaan noqono cambaar la yiraahdo reer hebel ama maamul goboleedkaas maalinkaas waxa sameeyay dalka Soomaaliyeedna wajuxum u soo jiiday wax kasto oo maanta santeera ah oo dalkan lagu bedesho oo hunguriya waa dhamaanayaan taariikhdeena galayaan dib waxaad u xasuusataan dadkii dalkan u soo halgamay oo u soo gaajooday oo u soo dhaxamooday oo u soo qaday iyo kuwii santeerada yar siistay ee gumaysi kalkaalka ahay ee ilaa dukuura dawladda la shaqeynayay oo ma ilaa dukuura dana sameynayay maantay ilaa ay hadday dhinteen good ku qalaleenay 100 sano iyo 200 sano iyo ka hor ka soo wareegtay isku fiiri isbarbardhig waxaan hunguri waa dhamaanaya xilku waa dhamaanaya nolosha qofku waa dhamaanaysa laakiin karaamada qofka hadduu dhintana way joogaysaa waxa lagu leeyahay hebel waxaas uu maalinkaas sameeyay haddaad wanaag samaysid waxa lagu leeyahay hebel maalinkaas waxaas wanaag oo dalka Soomaaliyeed sameeyay war wixii naga horeeyay oo horteen dhacay ee nimankii Soomaaliyeed siyaasiyiinta sameeyeen oo ama wanaagahay ama xumaanahay ciribta maanta leeyihiin ciribta maanta ka tageen oo maanta magacooda ku xardhan war nin walba ummadaas
middaas ka digtoonow war nin walbow middaas ka digtoonow war nin walbow wanaaga waad arkaysaa oo igama dhug yerid oo dadka Soomaaliyeed shacabka xilka hayno masaakiinta kama dhug yerid inaad ka dhuweyntaa mooyaane war sharaftaad ilaasho dalka Soomaaliyeed waa ka haraya sharaftiisu way ka haraysaa karaamadiisu way ka haraysaa dal ahaan iyo dad ahaanna way ka haraysaa laakiin lafahaada dambe caruurtaada deegaankaada u turo magac wanaagsan uga tag intaas baan ku soo koobayaa live-kayga waa markii ugu horeysa oo halkaan live ku soo noqdo aad baan idinku mahad celinayaa marar kale oo badan inaan isku soo noqonaan rajaynaa haddii Ilaahay yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته